حقين هذا سفارة كفر سفارة وعنو كفرنا قلبيت كقدس وأقول كدمان ضلالك عربت وغوسيين إنه يهيدوا الإسرائيل هذا هذا ركاز عن ما يستعصيه وعطينا اعتراف كسور كذا اعتراف بدأت شعبي قول شيك إلى كسور كذا حرية يلو صاحب كي موسى والله صاحب كي وضدي وناكسيني هيسي هكذا أحد إن شاء الله مركز لما يستمد الدحيلات كدستوري يقول هاي مشرح مدحوينه يقول حقا وحرصي على حاجة حسن قدوميها حسبك وطني مضانا حرصي على حاجة حسن يقدوميه كحقين ذا قدوميها قولها الدحية يكحقين ذيسة وهيها قود يكحقين كيسة حبناها وقانكا حبناها قدقة فلنتا قربك هوينك يقربك دلنيرده حكاياش حسبك اللي بانada labada gole maayirada iyo xubnaha golayaasha deegaanka ee ka soo jeeda xisbiga wadani ay nagala joogaan saafidayo maayirkii Hargeysa kii Boorame iyo kii Burco adaa qaar ka tagayna way mahadsantiin gudoomiyaasha xisbiga ee gobolada iyo degmooyinka laamaha dibadda ee xisbiga guud ahaanba golaha dhexe ee xisbiga marti sharafta gudida diiwaangelinta ururada iyo axsaabta qaranka iyo xisbiyada qaranka ee ka iyo kulmiye marwooyin iyo mudanayaal salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh howlkani wuxuu ii leeyahay xasuuso badan howlkani waa howlkii lagu qabtay shirweynihii ugu horeeyay ee ururkii wadani intaanu xisbiga noqon waa howlkii lagu doortay gudoomiyihii koowaad ee xisbiga wadani waa howlkii lagu doortay musharax madaxweyne waxaanu mahadnaqayaa marka hore boqolkiiba 64 tii u codaysay xisbiga wadani doorashadii madaxweynaha gabadh kastoo ka mid ah nin kastoo ka mid ah dhammaan dhallinyarada codaysay waanu mahadnaqayaa marka labaadna waxaan idinka codsanayaa dhammaantiin inaynu faatixada u marno aasaasayaashii guddoomiyeyaashii madaxdii kala duwaneed ee xisbiga ee aan maanta inala joogin ee geeriyooday آمين مرنبا لما يلاوي دونو كالنتي يتردي لقول لي باني حسبي كل هايين دد كان جيريودي وهكذا أي فاتحة ومرينا لأن يردي كو جيريوتي مظاهرات دي سلبيها حسبي سميي انتي ومعارضك يجري إلهي هون حريستو وهكذا دعينا لما مساسياشي مدحدا حسبيغا taageerayaasha intii caafimaad xumo la soo diristay waxa Ilaahay uga barayaa inuu caafimaad siiyo waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa taageerayaasha iyo xubnaha xisbiga ee u dhabar adaygay muddo 15 sanadooda iyagoo marna dhinac uga dhaqaaqeen inay xisbiga taageeraan oo naftooda u huraan oo maalkooda geliyaan wixii qawada iyo wixii saluugana waa aqoonsanahay laakiin kolba intii suurta gasha ayaanu ku taageeri doonaa taageerayaasha haddii alla yiraahdo maanta waxa farxadii ah inaan noo huwan saddex maamuus ama sharafood aan idin hor imaado mid waa inaan ahay aasaasi xisbiga تعب كبدن جلسين
كلاوادنا وحوي إن أنا ها نمرناكي أما عيارتوي هذا شرح ذين دور الشدي لبكن يا فريق لباتن الشعب يسوي لنا إذا لقاطي قول يستينه شرفت صدحات وإلى المنطقة هاي مدحوينها جمهورية الصومال الآن إلى المدحوينها هاي وهي فريا دستورك إلى الشعب يقصي منها هاي والمدحوين وضعي حل كان هيا وكويه هي كحسبيه وهو دستورك فريا إن عندما الشعب الصومالي لا يديقه أنا أروكلا صارين حسبيه وكسو تشيدو أما فكر كسياسة ديت إيوامسية ولا الله waxaynu isweydiinaynaa maxaynu u aasaasnay xisbiga wadani waxaynu u aasaasnay inay shacbiga Soomaaliland helaan madal siyaasadeed oo ku dhisan cadaalad isla xisaabtan midnimo qaran dawladnimo dastuuri ah tartan dimuqraadi ah oo nabdoon iyo sarreynta sharciga xisbiga wadani marna muu noqon gaadhi nin keliya isteerinka u hayo wuxuu ku salaysan yahay tala wadaag wax wada la'aanshiyo iyo in hoggaanku uu noqdo qori isu dhiib ayuu ku soo gaadhay halkan aynu maanta joogno haweenka iyo dhalinyarada iyo odayaasha maanta halkan jooga waa raasamaalka xisbiga waanu mahadnaqayaa guusha ugu weyn aynu ku faani karnaa ma aha inuu xisbigu inaynu ku guulaysanay doorashooyin dhowra laakiin guusha ugu weyn waxay noqonaysaa inaynu ka tegayno dhaxal umadeed oo qarniyo jiri doona oo ah xisbiga wadani sidoo gudoomiyuu sheegay waxaynu qori doonaa qalindaraadayn doonaa barnaamijka ama ideology-ga xisbiga oo ku salaysnaan doona nabad iyo barwaaqo إن شاء الله حسب جريوها سيد الله شيء حسب يقول يكون هذي إن لك لا صاره مشرح مدهويني يقدومي حسبك وحانو شدي إن حزابته اللي وذليه هاي وأنا قف العين أمر العين إن شاء الله مركز لما يستمد حالات كدستوري يقول هاي مشرح مدحويني يقول وحرصي على حاجة حسن حسبك وضني وهو النقضي دقسي وحبرشو أو كقدوين يا حسبي ذكره وهو النقضي حسبك وقبضنا صاري ضلي يرى سياسيين شيل عصبو سياسيين وما أنتنا مسؤولين قرن وبضل هواكم وطير نحاتك وكل شيء هاي حسبك وضني يجا يا بابلي نظامي ديفيكلي ونفط أهوري شغدا وحسبك هل كان كسو قاري وأغنى وكورها إنا إنا ولي حسبك يا حكومة ضمدنا بلغات كيسي بقول كيف الصدن إن الحسبك أما حكومة كهلان إنا نافلين ونغني ونكحناي لكن واهمي له أنا كسرنا نقعد ربع قرن أي كذا سوريكتي
markii aynu aasaasnay nidaamka xisbiyada baran ee Somaliland hase yeeshee nasiib darro weli xisbiyadu inoomay korin waxaanu u baahanahay in xisbiyada korino oo aynu ka saarno nidaamka qabaliga ah oo aynu ku dhisno aragtiyo iyo hannaan siyaasadeed oo cad siduu xirsi ka hadlayay marka walaalayaal siyaasaddeena arrimaha dibaddu ama ta dal kastaaba ta Maraykanka ta Ingiriiska ta Turkiga ta Carabta ta Masar waxay ku salaysan tahay danta qaran waxa loo yaqaano national interest innaguna kama duwanin dalalka siyaasaddeenu waxaa hogaaminaya kow ka ah sida Maraykanku u leeyahay America first waxaa leenahay Somaliland first waxaana inagu waajiba muwaadin iyo madax inaynu danta qaranka wax walba ka horeysiino Somaliland 18 May 1990 waxay ku dhawaaqday inay la soo noqotay qarannimadeedii iyo madax bannaanideedii dunidu wayna maqlaysay wayna arkaysay fariintaasi waxay ahayd dunida aynu u diray mana aragtaa 35 sannadood inoomay soo jawaabin weli badankoodina inoomay soo jawaabin 35 sannadood innagu waxaynu nahay dad boqolkiiba boqol islaam ah oo aan barxanayn oo ku adag diintooda iyo dhaqankooda waxaynu leenahay dalal islaam ah oo aynu walaalanahay oo walaalahayna laakiin dalalkaasi 35 sannadood wayna dhagaysanayeen wayna arkayeen islaamnimo iyo walaalnimo midna inooguma jixin 35 sannadood kadib bacdi dal keliya ayaa yidhi waanu idin aragnaa waa noo muuqataan waa jirtaan waa idin aqoonsanaynaa ma dalkaasaynu saaxiib la nahay mise 57 waddan ee islaamka ah ee ayna diidanayna ma jirtaan oo idima aragno waxaynu saaxiib la nahay dalka ayna aqoonsaday diintiisa waxba inagama gelin inta inuu wax ka fahmaysa waxa loo yaqaano diblomaasiga galaal iyo halka fadhiya iyo safiirro kale way joogaan diblomaasigu waxay ku salaysan tahay xeer la yiraahdo reciprocity macnaheedu waxa weeye waxba la isweydaarsanaya marka Israa'iil wayna aqoonsatay innaguna iyagaynu aqoonsannay waayo dawlad Israa'iil markay aqoonsatay dalalka islaamku way naga soo horjeesteen dhamaantood waxay aqoonsiga Somaliland ma ogolin waxaan magacaabay safiir waxay safiirka ma ogolin waxaan furay safaarad waxay safaaradda ma ogolin waxay doonayaan talo bal idinku ka jawaaba dalalkaas waliba walaalaheen waliba dalal islaam fariin kale u diraya maanta walaalayaal waanu idin baahannahay waanu idin jecelnahay walaalaha ayaa tihiin naarka
هذا نارك ويدان تدي بتنجد هيا وكينا قصراح كسور شيء سنين أنا ودي من نعبين وادي شعله وادي أركينا وادي مدة في السنين محن مدة في السنتين ونشرنا حقيقة ما ونهاي عندنا ما ترتري كرت سوماليلاند مدحدي يقول ريسي ويدد علينا اعتراف كان هو اللي بيودون ينو كانوا وحاول بي يعني حلك كلاوري صاحب كي موسى ودد عليه وحنو قرية إنه ودد عليه وتجي ميل الله يلاحظه جيني كناكري وارك كاناي اعتراف هسه شيء ولي واقبي اعترافك وهكذا بيسي وهذا لين يجي اعترافي وعنك كان إثيوبيا ولي واقبيه والله يا صاحب اعترافك يا دونيسي وعكو قوليستي أنيقة وما أنت مدحويناه واتسودويس وانا كاغا ما هدنقيا adoo beertaada jooga lagu soo sheegay beertii waad ka soo carartay siyaad xafladda ويا قبلت وعليه صاحبكي وددي wanaagsaniyada haysay ha ka leexan Israa'iil markay naaqoosatay waxa xalaal inoo noqday inaan safiir magacaabo oo uu noqdo safiirkii ugu horeeyay ee la aqoonsan yahay ee Soomaaliland yeelato safiirkii dawladda Israa'iil way soo aqbashay intaana waa ku darayaa markay Israa'iil soo aqbashay dalalkii islaamka way naga soo horjeesteen waxa xalaal inoo noqday inaan safiir magacaabo waan magacaabay dawladda Israa'iil way aqbashay iyaduna safiir bay soo magacaawday waan aqbalay waxaan kaloo ku heshiinay inaan safaarada kala furanno safaaradii waanu furay waxaanu ka furay Qudus wuxuu ahaa go'aan sax wuxuu weeye go'aan ka noqosho lahayn waa dalka kaliya ay naaqoonsaday Qudusna waa idinka warramaya waxa laga yaabaa dadka badankooda inaanay Qudus u wada yaqaanin Qudus waa laba qaybood qayb waxa la yiraahdaa Qudusta galbeed oo Israa'iil markay dawladnimada ku dhawaaqday 1948 waxa loo aqoonsaday dhul Israa'iil leedahay dhinaca bariga Israa'iil waxay qabsatay 67 dagaalka loo yaqaano 6 day war kaasa muran ka jira xageenu hadaba safaaradda ka furay safaaradda waxaanu ka furnay galbeedka Qudus oo dhulka dhammaan dalalka Carabtu ay aqoonsan yihiin inuu yahay dhul Israa'iil leedahay marka dadka yaan waxa jirin lagu khaldin anigu shakhsiyan iyo xukuumadayduba waxay aaminsan yihiin in dhammaan shucuubtu xaq u leeyihiin ay ka talintooda oo ay ku jirto shacbiga Falastiin laakiin aniga imadan dooranayna Falastiin u hadlo miyaa ii doorateen waxay doorateen inaan ka hadlo arrimaha Soomaaliland Falastiin kama inaan hor iman marna shacbigeeda kama inaan hor iman in ayadooda ka tashadaan waa ogol lahay waxay doorateen
inaan Somaliland u adeego u shaqeeyo inaan Somaliland ictiraaf u doono cid walba waa ka doonay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa waxa ku jira 193 wadan dhammaantood waan u marti tagnay waraaq baan u qoray de wadan aan muslim ahayn oo inoo soo jawaabay mid qura jira hadda kuwii muslimka aan inoo soo jawaabay mar labaadna fariintii waan ugu celinayaa dalalka islaamka waa idin ogol lahay waa idin jecel lahay walaalaha ayaa tihiin hana dafirina ee naarka haddaan na dafirtaana xaqiiqo jirtaan naho oo aan baaba'ay cidina ma tirtiri karto kelimad baan ku gunaanadaya qofka muwaadinka ah ama xisbi qaran ku doono ha noqdo اعترافك Somaliland baan ogolahay laakiin qudus in safaaradda laga furo ma ogoli wuxuu ka dhigan yahay nin yiri baktiga ma cuno laakiin fuudkiisaan caba adeerkaas socon maysa taasi waxaad tidhahaa اعترافka ka soo horjeeda اعترافka badheedh shacbiga u sheeg inaad ka soo horjeedo xiriye yeelo